Bismillahirrahmanirrahim waxaan wanaagsan qiyaarta awooda naga daawanaysaa kusoo dhawaada warka telefishinka Hilaac madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhambaal ka gudoomay safiirka dawladda Qatar u fadhiya Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan sagootina la qaatay safiirka dawladda Kenya u fadhiya Soomaaliya xisbiyada mucaaradka Somaliland oo codsi ku aadan in ay dibadbaxyo ay ka dhigaan deegaanada maamulka Somaliland u gudbiyay xukuumadda maamulkaasi ergeyga arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kulan la qaatay safiirada dawladaha UK iyo Mareykanka faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo qarax qasaare geysta oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Hilaac